maanta waa tiimkayagii dalkaaga u shaqee tiimkii ahaa oo u shaqaynayay dalkooda baan nahay waa maalinkii shanaad waxaan shaqada wadnaa isku tashiga ah ee magaalada Gaalkacyo aan ka wadno dhammaan waxa weeye reer Gaalkacyo waa u mahadcelinaya hawsha nala wadaan waxaan kaloo rabaa halkan waa mahadceliyo shaqada maanta socota dardarteeda xoogeeda waxaan mudnaanta koobaad siinayaa ama mahadcelinayaa shirkadda wadaniga Kibaarko oo qaadatay maanta shaqada xoogeeda waxaan kaloo mahadcelinayaa markii labaad inay Shaafici al-Macruuf supermarket qayb ka ahaa shaqadan waxaan mahadcelinayaa kala Dalmar full station oo iyadana maanta halkan nagala qayb qaadatay shaqadan dawladda hoose oo laftigeedu ahaa dhiirigelin iyo shaqadan laftigeedu magaranaysa inay nagaga warhayso waa u mahadcelinaynaa xildhibaanada qayb ka mid ah oo nala shaqeynayay maalmihii shaqada aan wadnay waa u mahadcelinaynaa magacaygu waa Cabdicasiis Saciid Guray waxaan ka shaqaynaynay maalinkii shanaad laamiga halboolaha ee magaalada Gaalkacyo shaqadan waxaan bilownay 5 maalmood ka hor maanta waxay u socotaa si habsami leh dadka reer Gaalkacyood waxa weeye aad iyo aad bay u soo dhaweeyeen arrintan aad baan ugu faraxsanahay mataqaanaa sida sharafta leh shaqada nala wadaan waxa xusid mudan oo cajiib ah maamooyinka iyo dadka ganacsatada ee laamiga hareerihiisa degan in ay si fiican mataqaanaa ay ula shaqeynayaan gabdhaha ka shaqeynaya laamiga waxa laga rabaa qof kasta oo muwaadin ah oo reer Gaalkacyood ah xaaladda dhacday oo Ilaahay oo noo keenay oo khayrka nimcada ah in ay dhinacooda ka qaataan oo nadaafadda iyo caafimaadka ay ka shaqeeyaan muhiimadda ugu weyn ma ahan in la ganacsado waxa ganacsiga aan ka hormarinaynaa caafimaadkeena haddaan caafimaad haysan ganacsi ma jirayo waxa la rabaa marka dadka reer Gaalkacyood dadka gaadiidka wata iyo kuwa ganacsiyada leh iyo dhalinyarada meherada iska farfadhiyaba in ay soo kacaan oo ay wadankooda dib ugu celiyaan xoogga Ilaahay oo siiyay caafimaadka waxa la rabaa qofka bini'aadanka inuu ka faa'iideysto xoogga Ilaahay oo siiyay anagoo magacayga Aamin Cabdiqaadir maanta magaalada Gaalkacyo waxaan dalkeena u shaqeyno anagoo maanta kulashan laamiga haaqeyno oo waxba aan macna leh aan qaadanayno shaax wax aan qaadanayno aan laamiga dalkeena dadkeena inaan difaacno waxayna boorka iyo gaariyada meesha maraya boorka inaan ka difaacno oo haaqno magaalada dalkeena inaan disho saarnaa u baahannahay inagana dad weyn oo Gaalkacyo dadka jooga waxaan anaga dadkeena inay nad garab qabtaan oo dadka laamiga waxa la haaqay inay dad naga qabtaan oo soo garab istaagaan diyaar u nahay magacaygu waa Maxamed Kirin Cali waxa ku suganaa magaalada Gaalkacyo saaxiib maanta ma sha Allah arrin farxad leh baa ku jirnaa saaxiib macaan laamigayagii oo naloo xaaqayo roobab waadeen laamigii marka firo gaariyaasha maraya dadkii Samboor iyo waxba hargab iyo waxbay dareemayaan malaariya soo galeysaba marka ma sha Allah saaxiib anigu ah Xaliye Maxamed Cali nadaafadda magaalada isbuucan laga waday magaalada Gaalkacyo wada arkaysaan maanta laamiga nadaafaddu ka muuqda maanta wuxuu u baahan yahay wax la isku sawiraba gibigiisa dhanba awal wuxuu ahaadee meel aad la yaabisay oo biyihii roobka raxmaadka Ilaahay uu siiyay oo na siiyay ya waxyaalo badan u geystay laakiin maanta dadka kale shaqada wado iyo dadkan abaabulay oo uga mahadcelinaynaa shacabka meesha magaalada Gaalkacyo oo isxil qaamay sidoo dad wax meel gaaro han yeesho waxa loogu tagaa dad iyagu isxil qaamo iyagu istiro wax walba meel yaal iyagu iska qaadaan